kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maawalada dhallaanka oo ka daawataan marka soo booqataan channelkaanu ku leenahay YouTube ee dhalaan koriye toddobaad sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekadan toddobaadkan idinku haynana caruurey waxay ku saabsan tahay toddobadii wiil ee waalidkood habaaray aku bilaabo waxa la yidhi bari hore caruurey waa bari hore ayaa waxaa jiray waalid hooyo iyo aabbe qoys mid deganaa oo 7 wiil lahaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa qoyska u dhalatay gabadh yar oo ay inta kaliya reerku leeyihiin markii qoyskooda ku soo biirtayba waxa ku soo booday xanuun lama filaan ah aabbaha iyo hooyada gabadha yar dhalay ayaa u warwaray noloshaynantooda waxay ka baqeen intaysan kulinba inay dhimato maalintii dambe ayaa aabbuhu mid ka mid ah 7diisa wiil u yeedhay waxa uu yidhi waxaan u baqayaa xaaladda inanteenna waxaan doonayaa inaan cashar u dhigo iyo waxaad biyo nooga soo dhaamiso ceelka dhala ayuu u dhiibay uu biyo ku soo dhaamiyo markii wiilkii roona dhaqaaqay ayaa 6dii wiil ee walaalaha la ahaana ka daba dhaqaaqeen waxay doonayeen inay walaalkooda weyn caawiyaan balse markii ay gaadheen ceelka iyo waxa caruuray ay ku murmeen midkooda doonaya inuu dhaamiyo uu biyaha ceelka ka soo daro si uu u buuxiyo koobka loo soo dhiibay way ku dul murmeen kadibna way isqabsadeen intay muranka iyo qaylada ku jireen ayaa dhaladii ama koobkii loo soo dhiibay ceelka kaga dhacay dabeetana caruuray tale ayaa ku caddaatay way murugoodeen waxay ku hadlaan ayay garan waayeen waxay sidoo kale ka baqeen haddii aabbahood iyo hooyadood kula laabtaan gacmo madhan in la ganaaxo oo waalidkood ciqaabo aad ayay u cabsoodeen kadibna muddo dheer ayay ceelka iska sii dul joogeen iyagoo aan garanayn waxay sameeyaan maadaama xaaladda inanta yari ka sii daraysay aabbihii ayaa warwar darani ku bilaabmay waxaana maskaxdiisa ku soo dhacay wiilashaydii way iska ciyaar tegeen iyagoo og in xaaladda gabadha yar ee walaalaha leeyihiin u dhaxayso geeri iyo nolol kuwan waan habaarayaa ee alla tukayaal ha ka dhigo markiiba caruuray 7 tuke ayay wiilashii noqdeen intaan aabbihii halkii ka dhaqaaqinna wuxuu xagga sare ka maqlay dhawaqa tukayaal dulduulaya oo legtirada wiilashiisii markiiba wuxuu arkay in habaarkiisii alla aqbalay wuu murugooday mar kale xaaskiisa ayuu u yeedhay habaarkii ka dhacayna wuxuu caruuray noqday midaysan dib soo celin karaynin sidaasna waxaa qoyskani ku waayeen 7dii wiil ee ay dhaleen gabadhii yareed ayaa muddo iska ladnaatay alla ayaa caafimaad siiyey way kortay maalinba maalinta ka dambaysa ayay weynaanaysay weligeedse ma maqal inay 7 wiil la dhalatay oo tukayaal noqday maalin ayaamaha ka mid ayay suuqa aaday kadibna waxay maqashay xanta dadka suuqa ay ku sheekaysanayaan oo ah in gabadhan yar ee quruxda badan leh ay 7 wiil la dhalatay balse habaarka aabbahood ka gadaal ay wiilashii noqdeen tukayaal tan iyo maantan aan lahayn sheekada ayay la argagaxday oo ka naxday kadibna waalidkeeda ayay dib ugu soo laabatay markii ay weydiisana waxay ku yidhaahdeen waa dhab waxay uga sheekayeen sidii wax u dhaceen waxayna u sheegeen inaysan iyadu wax mas-uuliyada ku lahayn dhibaatadii dhacday habeen iyo maalin ayay caruuray ka seexan kari weyday warwarka iyo dhibaatada ay ka qabto wixii walaalaheed ku dhacay waxayna ku reebtay murugo iyo urkutaalle ay ka noolaan kari weyday maalintii dambe ayaa waxaa gabadhii yareed caruuray ay go'aan ku gaadhay inay badbaadiso ay caawiso nolosha walaaladeed waxay urursatay alaab yar oo kooban ay qaadan karaysay kadibna waxay u jahaysatay dhanka ay ku tuhmaysay inay walaaladeed ku jiraan dunida meelna kuma ogeyn waxaase keliya ay maqashay in walaaladeed ay yihiin 7 tuke waxay tidhi haddii ay si un u nool yihiin oo meeluun laga yaabo inay noloshooda ku jirto waa inaad badbaadisaa muddo kadibna go'aanka ayay qaadatay maalintii dambena waxay u jahaysatay dhankii ay moodaysay inay walaaladeed ka xigaan dariiq dheer ayay qaadatay iyadoo tuurta ku sidata sahayar oo kooban muddo markii sii socoto
oo kolba jaha u jiisanaysana wadda dheer ayay cagta saartay halkaasay madaxeeda kor u raacday sahay badan maysidan waxay wadatay fargalka hooyadeed ruuxabad rooti gaajada isaga ilaalinaysay koobay biyo ku wadatay iyo kursi ay ku fadhiisato markii ay daasho waxaan intaa ka ahayna ma qaadan kolba jaha ayay u socotay markii dambana dariiq dheer ayay qaaday tan iyo intii ka gaadhaysay dhammaadka dhulka caruurey cadceedda oo daran ayay la kulantay kulayl iyo hanfi badan ayaa jiray kadibna dib ayay isaga soo laabatay dhan kale ayay u kacday buuro dhaadheer ayay fanatay tan iyo intii dayaxa ku dhowaanaysay qabow iyo dhaxan daran ayaa qabsatay kadibna dib ayay mar kale caruuray u soo noqotay haddana buuro kale ayay kortay ilaa ay xidigaha u dhowaatay mid ka mid ah xidigaha ayaa u timi waxay ku tidhi aniga ayaa ugu xadoonayso 7 wiilaad la dhalatay waxay ku hoos noolyihiin buuraha dhaadheer ee barafka noqday ee sida guryaha oo kale loo galo haddii aad qaadato laftan waxaad ku furi kartaa albaabka guriga kadibna halkaas ayaad walaalada ka helaysaa laftii ayay ku soo duubatay mara yar kadibna gurigii loo tilmaamay buurtaha ayay timi balse markay kadinka istaagtay ayay caruuray xasuusatay in laftii yareed ay ka luntay way warwartay balse haddana intay fikirtay ayay albaabka ku eegtay faraheeda yaryar nasiib wanaag fartii ay gelisay ayaaba albaabka ka furtay kadinka markay ka soo gashay waxa ka hor yimi nin oday ah oo ordaya waxa ku yiri maxaad doonaysaa iyana waxay u sheegtay in baadigoob ugu jirto 7 wiil oo la dhalatay oo habaar kadib tukayaal noqday waxa ku yiri way jiraan 7 tuke hadda way maqan yihiin habeenkii ayay si halkan u soo caraabaan oo yimaadaan hadda doonayso halkan ayaad ku sugi kartaa iyana intay ku faraxday ayay soo gashay si uu sugto walaaladeed gobolku markuu dhacayna ninkii wuxuu soo qaaday 7 saxan iyo 7 koob wuxuuna ku sharaxay miis saxan kasta wax yar ayay ka cuntay cunadii taalay biyihii yaalayna wax yar ayay ka cabtay midkii 7aadna waxay ku riday waa koobkii fargalkii hooyadeed ee ay lahayd wax yar kadibna ninkii ayaa u yimi oo ku yiri hadda ayay imanayaan 7 tuke ee aad baadigoobka ugu jirtay intay faraxday ayay meel isku qarisay markay yimaadeen miiska cunada ayuu mid waliba kan kale u weydiiyay cunadayda qayb yar ayaa laga cunay ee yaa cunay ka kalena waxa uu yiri xataa biyahayga qayb yar ayaa laga xabay ee yaa xabay kulli qof ayaa halkan isku qarinaya ayaan filayaa ayay yiraahdeen balse kii 7aad markuu doonayay inuu koobka biyaha ka cabo waxa ka soo dhacay faraatigii hooyadii lahaan jirtay markiiba wuu gartay wuxuu waa fargalkii hooyadeen waxa jeclaan lahaa inay halkan walaasheen joogto si noloshiina u badbaadiso markii codsiga iyo rabitaanka walaalkeed maqashay ayay markiiba soo baxday caruuray waxyar kadibna 7 tuka waxay isku bedeleen 7 wiil halkaasna waxa ku jabay habaarkii waalidkood kaga dhacay markale ay noloshooda ku midoobeen waxaana dib ugu soo laabteen gurigooda iyagoo faraxsan sheekada tan caruuray waxaan ka baranaynaa dhibaatada ay leedahay markii amarka waalidkeen aan maqli weyno iyo dhibta kale ee aan ka sii dhaxli karno marka aanu murano iskuna khilaafna amuraha dhexdeena yaala waxaase sheekadan sidoo kale aan ka baranaynaa muhiimadda ay nolosheena u leedahay inaan dhexdeena iscaawino xaalad kasta oo walaalka ku jiro ayay tahay inaad ka caawiso intii karankaya gabadha yar iyadoo aan aqoon meel ay ka jiraan 7 walaalay la dhalatay waxay kama dambaystii ku guulaysatay inay soo badbaadiso intaanu taliya 7 ka dambe isugu imanayno sheekada tan ku xigta waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo waqtigu ha idin wacnaado